dadka localka way u qalmaan maxaa dhiirigelinaa marka qurba joogta shaqeynaya waxa qurba joogta shaqeynayso ninka u sareeya dalka wuxuu yahay qurba joog ah dalkeed 65% dawladda xafiisyada wasaaradda wasaaradda ka yihiin Soomaa wasaaradda waxbarashada horta dabcan saan ogsoonahay wasaaradda waxbarashada wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dawladda hoose ayaa waxay shaqeysaa qiimeyn ay soo saartay sanadkii 18 shaqaalaha ka shaqeeya inay boqolkiiba 65 ay yihiin qurba joog taas ma waxay ka dhigan tahay dadka localku ma aha dad u qalmayso inay ka shaqeeyaan dawladda waxyaabo kala saaran dadka localka way u qalmaan maxaa dhiirigelinaa marka qurba joogta shaqeynaya waxa qurba joogta shaqeynayso ninka u sareeya dalka wuxuu yahay qurba joog ah sidaas daraadii marka mar walba waxa u soo dhawaanaya asaga u yaqaana oo ka sii fogaana macna dadkii dalka gudihiisa jooga marka sidaas daraadii marka waxay keentay inay dhiirigeliyaan dadka inay baxaan baasaboor ajnabi soo qaataan oo dalka laga wada hayaamo oo kadib dib qof walba ugu soo laabto si uu fursad shaqo uga helo dalka Soomaali qodobka ku saabsan dadka ka shaqeeya wasaaradda 65% qurba joog inay yihiin qodobkiisa ku raacsantahay in aqoon aysan dhiirigelineen laakiin ay dhiirigelinayso xogaa maadaama dadka meesha asxaabta sare oo meesha joogtay yihiin qurba joog saas ay dhiirigelin ku helayaan mise aqoontooda ku helayaan leedahay horta laakiin mid wasaaradda bismi ka shaqeynaysa dalkeed 65% dawladda xafiisyada wasaaradda ka yihiin Soomaa wasaaradda waxbarashada shaqada iyo shaqaalaha horta dabcan saan ogsoonahay qofka qurba jooga Soomaaliga waa muwaadin kan gudahana waa muwaadin si ahaan wax kala duwan malaha marka laga soo tago maxaa u baday wasaaradaha aniga ahaan saan ogsoonahay dalkan oo taa hore ugu soo hadlo burburkii ilaa hadda ayagu jaanis waxay heleen inay dalka baxaan xirfadooda ay sii kororsadaan waxna ay sii bartaan Soomaa marka just skillkii oo wasaaradda laga rabay ayaa laga helay Soomaa marka laga ma ogaad aan dhaweysto ma ilaa ka dhax rabaa dadka skill badan ka aqoon badan oo banaanada jooga jiro oo aan fursadaha helin ayaga siday ku heleen waa fahmi karnaa waxay ku heleen saaxiibtinimo iyo garab iyo isku dalaan ka soo jeedina isku dhalashaan wadana iyo waxyaabo la mid ah marka skills haday tahay dad kale oo ka badan jiro oo dalka gudihiisa joogay maxay noo sii waayay anaga oo dadka gudaha jooga loo sii fursadaha oo ayaga loo sii wallaahi waa sax waayeen sidoo horta aad sheegteenba waa jirtaa laakiin mid aan idin sheegaa xaqiiqda markaan rabno inaan ka hadalno waxaan rabaa capacity ahaan waxa musuqa si loo yareeyo qof basic needs ka dhisan waa muhiim inuu shaqaale dawladda ama waxa public service inuu qabto Soomaa laakiin qof basic needs aan ka dhisnayn corruption markuu yimaado corruption ma localka because waa dad baahan aniga taas waa soo jeedaa dadka localka jooga qarashka baxay aad u xadidan yahay laakiin ninka qurbaha jooga qarashkiisa uu ka badan yahay aqoonada dalka dibadiisa lacagta ku soo celinayaan waxaad u baahan tahay inaad page-kiina like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jowhar TV daawade mar